horkacaya madaxweynaha maamul goboleedkii Khaatumo cilmi Ismaaciil markana ka mid yihiin golaha dhaqanka golaha madaxtooyada iyo waliba golaha xukuumadda ayaa shalay kormeer ku tigay diyaaradaha محمد عبد الحسن ايربورت قلنا صريح كاسو حلقي ومدعوه كرمال كوفي سعودي ولا شقيه لغو لما اشتري يقدرون كافيه مدعونا احمد علمي عثمان احمد كاش يخليه للسعوديه وردحين كبني مسؤولين تقوى ولا نسمعها الدرون سيد محمد عبد الحسن ورياض سوحاتا الله انجنير بس عندك وهي كرون كافي انجنير رابع عيسى الدقل ويسوي كون الحقيقة كون حي يسير وشقين دولار وحاولنا انجنيركم كيرجو حين كرونكم نقول دورين العالمي waxa farxadii ah inaan ku soo dhaweeyo maanta aeroboortka Sayid Mohamed Abdullah Hassan International Airport of Saleh oo dhismihiisu uu socdo aeroboortkan waxaan ku talagalnay 2 toddobaad ka hor inuu dib noo dhigay markii ugu horeysa ciid aan aad u fiicnayn aan markii hore dhignay markaan ku dhamaynay ayaan ognay ciid jilicsan oo tiidi ugu wanaagsan oo boroborka idin ahayn waanu bedelay meeshii aan ka soo qoday ka fog baan ka doonay taasoo dib bay noo dhigtay waxa dib noo dhigay mishiinadan aad arkaysaan waa wax malaha meelaha laga soo iibiyo duugo maalin walba mid baa naga shaqay waxa nagu kaliftay injineer joogto ah oo aan ka dhaqaaqino meeshii socday inaanu sameeyno garoonka kani badkiisaas waa boqol sidaa dhererkiisa ahna waa ku yeeshan boqol hadda intan idiin muuqataa maadaama aynu baahi degdega qabno diyaaradda ranweygeeda waa 40 mitir 5 hadday yar ciirto ay ku hakan lahayd oo in dhagax loo qaateen iyo 30kii sharciga ahaa weeye muuqata inay shaqo wanaagsan ka socoto hawl adag shaqo xaqiiqatan anigu waan filayn inay halka gaarsiisan tahay intii aan ka maqnaa xagga ku maqnaa halkan saartaan waxaan ka shaqeynaya macadaad aad u badan ama isku rogoyn ahaadeen ama booyada ama macadaad kala ahaadeen sidii ay odayaasha sheegeen injineerkana ka hadlay waxaas khashiyadu ma ku kacayaan khashiyada waxa laga sugeeyay inay gacan qabtaan waa jaaliyada dibadda aan codsan lahaa anigoo ku hadlaya afka maamulka Khaatumo in arrinta wax laga qabto si ay u fududaato in isgaarsiinta xagga hawada ay inoogu fududaato hadii geeliya garoomo yeelano waliba uusan garoon kaliya lahayn sida aynu madaxweynayaasha badan u leenahay garoomo badanna u yeelano haddaynu reer Khaatumo nahay inoo ballana waxay inoo ballana kan uu ugu fududaa dhamaystirkiisu way jireen dadka qaar hadii geeliya si kale wuxuu arkayo waxba la afduubay wax la afduubayna ma jirin kan iyo kaboo hoodle iyo kaboo cama iyo kan holhol iyo kalaascaanood iyo intuba waa garoomo Khaatumo siday u kala horeeyaan ay u kala fudud yihiin dhamaystirkooda ayuun baa loo kala dhamaystiraya haddii ilaahay idmo haddii wiig ama 10 cisho ka bacdi uu kari ku dhamaado qalabka yaalla sidoo u shaqeynaya u dhayahayba hadii bidkii waa cagaf-cagafyada weeyaan isku rogooyinka maaha waxaanu geynaynaa haddii ilaahay raalli ka dhigo maxay ahayd iyagoo dhamaystiran inta halkan ka muuqatay mid kale soo socotaba meesha la yiraahdo Buuhoodle waxaan u mahad celinayaa in allaale intii ka shaqeynaysay oo wasiirku ugu horeeyo injineerka iyo rag kale oo runtii aynu hadda faaleynayno uu ka mid yahay shacab caadifad baa lagu bilaabay garoonku inta aynu ka sahlaan iyo baanu awal filaynay hadda waa taa warbixinta leenagu siinayaa lacag badan baa gashay mid badan oo horsan tahay waxaanu awalna galiyay 2 arrimood qolyo dibadda naga tigay oo dibadda ka imanayay runtii waana dadajiyeen waxay inaan ka soo degno waxaan kale oo jirta uu dhamaanaya garoonka runtii uu dhamaanaya sida injineerka iyo hawlwadeennadii idin sheegeen muddo yar kadib uu dhamaanaya war garoobadu isku odaya mas'uuliina waa wada nahay sida wuxuu bilaabmayna way idin ogeydeen runtii niman injineer ah oo aan la kulanay baa waxayna yiraahdeen 15 cisho dawladdu waa ku soo degaysa kaligeeda marka sidaas horta ku bilaabay insha Allah kana way inoo dhamaan doonaa ka kalena iyo kooyo kale waa dhamaystir doonaa waxaan ballan qaadaynaa mar alaaliya marka uu dhamaado
in alaabta sideeda iyo wasiirka ku shaqada leh shaqadiisu waa kana waa khusaysaa kaana waa khusaysaa waa wasiirka horumarinta weeye isaga oo baabuurta dusha ka saaran buu tegi doona insha Allah ilaahay qulubteena isu jiyo ilaahay ummadda shirkeeda hay dhaaf ilaahay argoodka inoo barakay ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay muslimiin ma jirto ilaahay qulubteena isu jiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa dhibkayna haytaa inuu ka qaado ilaahay laba talaba tiro baro qaabayn ilaahay ahmad oo rookana adigu noo dood ilaahay dushaada deeqana deeqsi ilaahay arabka dunya cadaabka aqraan ka magan galay ilaahay arab dalay arab banu ka magan galay ilaahay colaadi abaar banu ka magan galay ilaahay adduunka noo barakay oriyaha noo barakay وإيمانك إنه حاجة. لا هي ومضى إسلام كان باتها سواء قدر قاد.